wiil arday ah oo ka dhashay qoys faqiir ah ayaa wuxuu waayay wax uu cuno, wuxuuna dareemay gaajo aad u daran, gurigoodana uma dhawa, wax lacag oo cunto ka iibsadana ma haysto. Intaas kadib guri ayuu garaacay, markaa waxaa ka furtay gabar aad u yar, wuxuuna ku yiri walaal biyo isii. Gabadhii yareed waxay fahantay wiilka inuu aad u gaajaysan yahay, markaas ayay koob caano u keentay. Markuu cabay ayuu ku yiri walaal maxaan kuugu abaalgudaa. Gabadhii waxay ku tiri hooyadii ayaa i bartay inaan dadka wanaag u sameeyo, waxna kaama rabo walaal. Wiilkii ayaa yiri haye waad mahadsan tahay walaal, wuuna iska baxay. Haddaba muddo kadib gabadhii ayaa xanuunsatay oo xanuunkeedu wuxuu ahaa mid aad u daran, una baahan qarash aad u fara badan, balse qarashkaasi waxaa damaanad qaaday ehelkeeda. Intaas kadib gabadhii waxaa la saaray miiska dhakhtarka, dabadeed dhakhtarkii loo keenay. Markuu arkay ayuu oohin bilaabay. Haddaba in yar kadib howshii dhakhtarkii wuu ku guulaystay. Markuu xafiiskiisii tegey ayuu waraaqad u soo diray gabadhii yareyd. Markii gabadhii waraaqada loo keenay way naxday, waayo xanuunkeedu wuxuu ahaa mid halis ah, lacagtiisuna ay aad u fara badnayd. Balse markii waraaqadii ay furtay waxay ku aragtay hal eray oo keliya, kaasi oo ahaa walaal lacagta waxaad ku bixisay koobkii caanaha ahaa. Gabadhii way oysay iyada oo Ilaahay u mahad celisay, waxayna garatay in ninkani uu yahay wiilkii ay koobka caanaha ee siin jirtay. Dulucda sheekada ayaa waxay tahay u asxan fal qof waliba maalin bay wax ku tariyay asxankaas.